بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار. فبأي آلاء ربكما تكذبان. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم. إلهي نوافع آياتها قرآنك. كل واحد سويدين دون تامر مالينيا ورني كان ماشي كهذا لوا حقي جوجنا ووقت ما جورمان جوجنا أرتا ومجال الله يراهدهم من صوت قبل كلا يراهدو حافظ فريدلي وسكول عصب هذا أو لفري أو نهرو جرين معلومات بدن ناتكه لسان أو عروتي ناتكه كرتان. waxaa halkan la jooga marti qiimo badan oo kamida community-ga Soomaaliyeed ee ku nool magaalada tan Minnesota gaar ahaan khaasatan Minneapolis. kulay iyaguna waxa weeyaan waxay reereyn iyo soo dhaweyn ugu yimaadeen inay u hambaliyayaan furitaanka iskuulka. waxaan imika bal ku soo dhaweynayaa khubarada inoo joogtay iskuulkan oo inooga shaqeyn doonta oo ay ugu horeyso Farti oo ah Dr. Farley oo ah aqoonyahan shahaadada PhD oo ku takhasusay caruurta. Here you are. Hi, welcome to the Mood Center. We're so excited to be bringing the Center of Excellence in Quality and Compassionate ABA to the community. Thank you very much. And halkan waxayna la jooga maamulaha iskuulka oo ninka fikirka lahaa Maxamed Cabdullaahi Shiire soo dhow. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Aniguna waan idin soo dhaweynayaa sida Dr. Farley iyo Dr. Jobson waxaan nahay partner. waxa ka soo wareegay sanad waqtigii aanu noqonay partnerka. waxay ka socdaan Kenya Solution. fikirka badankiisana iyaga iskale wax badan bay la qabteen. Without them, I will not able to do this one. Yeah, really. They've done a wonderful job. Yeah. And inta ka bacdi halkan waxaanu ugu talagalnay inaanu ku caawino ciyaalka xanuunka qaba autism-ka. waxaana service-kan bixin doonaana wuxuu noqon doonaa ABA-ga Applied Behavior Analysis. waxa kaloo bixin doonaa speech and OT iyo physical therapy oo aan partner la nahay methodotherapy oo inaga sii jeeda. marka waxaanu ka fikirnay in halkan ay noqon doonto meel aanu ciyaalka Soomaalida iyo ciyaalada kale East Africa ka yimid iyo ciyaalada ku nool Twin City-ba aanu ka caawin doono baahiyaha ay ka qabaan behavior-ka. dadka ila shaqeeya oo aqoonta u leh fiilkan waxa hogaaminaya Dr. Farley iyo Dr. Jobson oo PhD holderisa kuna takhasusay Applied Behavior Analysis. waxay ka kooban yihiin 6 qof oo ka socda Kenya Solution. waxa jira hablo badan oo Soomaaliyeed oo ay ka mid yihiin Cawo, Ifraax, Fardowsa, Linsa iyo hablo kale badan oo hadda ku soo biiraya oo iyaguna haysta shahaadooyinka masterta oo ah supervisorada centerka. waxa kale oo ila shaqeeya Jennifer Miller oo QSP gabadha xagga joogta iyadna waa clinical social worker. Bahja oo la joogta hadda gabadhaas Bahja Gacantaag iyadna waa clinical social worker. CMDs-ka iyo evaluations-ka hore oo dhan iyada sameeysalkii wax ka bilaabmaan. hablo badan oo ay ka mid yihiin Selma, Caasha, Ayaan, Sumaya, Leah
Samira, Sarah, all these hablaha soo dhan waa weeyaan hablaha behavior technicians ka iyaga la aantoodna shaqadan ayna suurta gasheen waxa halkan jooga Cabdiraxmaan Abdallah Harun Bashir Ahmed Hudayfi iyaga la aantoodna ima suurta gasheen shaqo badan inaan qabto ciyalkan hayna iyo familiyadooduna la joogaan iyaga la aantoodna uma suurta gasheen shaqo badan inaan qabano marka ciyalka halkan way qaadi doontaa waa ilaa ciyal lagu qiyaasay 60 sessionkiiba mustaqbalka waxaan u soconaa inuu meeshan noqoto learning center oo special ed service-na aan bixino baahida kale ciyalka qabaana aan buuxino marka waxaan leenahay dadka degan Friendly area New Brighton Plain Kun Rabid oo dhan Anoka ilaa Hennepin familiyada qaar cottage group bay nooga yimaadaan oo aad fog 8 mayl halkan u jirta marka waan soo dhaweynaynaa kuna soo dhawaadaan leeyahay centerkan cusub okay Dr. Maxamed oo mahadsan yahay waxaan ku soo dhaweynaa bulshada Soomaaliyeed Amoud Center hal shay baa ay dhiman maanta waxa weeyaan dadka islaamkii waa Ashura intooda badan way sooman yihiin marka waa taariikhdii la furay iskuulkani maalinta Ashura sanadka hijriyada oo maanta ah 1444 iyo taariikhda aynu isticmaalno sida caadiga ah mataqaanaa gaalada oo ah bishii August oo 8 ah 2022 marka bulshada Soomaaliyeed waxaan leenahay ku soo dhawaada centerka wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh imikana waxa weeyaan waa furitaankii okay 1 2 3 yes yep that's nice mashallah mashallah humble you guys humble you بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والثناء لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين walaalyaal maanta waxaan joognaa Amoud Center oo centerka ugu weynaa oo maanta laga furay Friendly area runtii aad iyo aad bay community ugu faraxsan yihiin waxaan leeyahay warka badin maayo meeshan waxay u baahan tahay action kana waxa weeyaan in caruurta la keeno xanuunsan waan ognahay caruur badan baa naga xanuunsan familiyada kamid ah marka Amoud Center waxaan leenahay aad iyo aad baan ugu faraxsanahay runtii meesha aad u furteen community service-ka aad u qabanaysiin walaalkay Maxamed Cabdullaahi Shiino oo madax u yahay gabdho badan oo Mareykan ah oo wada PhD ah jazakumullahu khayran lana insha Allah bismillahir rahmanir rahim alhamdulillah ilaahay waa mahad leh runtii waxaan u nimi waxa weeye inaan hambalyeeno saaxiibkay Maxamed Cabdullaahi Shiine iyo iskuulkan uu furay Amoud Center oo lagu caawinayo caruurta autism-ka qabta waa hawl loo baahan yahay oo runtii dadka Soomaalida aad ugu baahan yihiin waayo guri kasta aad tagto waxa ilmaha waxa dhacday inta badan waxyaabaha aan lahaan jirin imika dadka Mareykan jooga guri walba waxa arkaysaa ilmo autism maxaan ku dhahdaa ay qabo oo jooga marka waa in laga caawiyo guryaha iyo familiyada oo qof dhaqankoodii garanaya iyo diintoodii iyo luqadoodii intaba garanaya uu ka caawiyo oo u furo runtii aad iyo aad bay maxaan ku dhahdaa ay u habboon tahay marka waan u ducaynaynaa inuu ka dhigo Ilaahay meel khayr qabta Maxamedna waa nin runtii aad iyo aad qiimo u leh muddana aan saaxiib ahayn runtii ragga hogaamiyayaasha gobolkan Minnesota ku jirana ka mid ah marka isaga iyo inta la shaqeysaba waxaan maxaan ku dhahdaa aan u rajaynaynaa guul iyo bashbash iyo barwaaqo iyo in Ilaahay ku guuleeyo hawshan ay qabteen wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. halka waxaan uga hambalyeynaa walaalkay maxamed cabdilaahi waxaan leeyahay aad iyo aad buu ku mahadsan yahay Amoud Center oo maanta ay bishu tahay bishii 8deedii 2022 inuu halka ka furay center aad dadka Soomaaliyeed ugu baahan yihiin ama caruuraha Soomaaliyeed ugu baahan yihiin iyo qof kasta oo ilmo uu ka jiran yahay uu u baahan yahay soo waxaan leeyahay aad iyo aad baan kuga hambalyeynaa faa'iidada aad ummadda Soomaaliyeed u soo hoysay community-gan aad ugu baahan yahay services-kan oo kale soo waxaan leeyahay horow socod السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين خاتم الأنبياء سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما أنت وحان حوق وفرح سنة يعني عبد الوهاب محمد عليا هاوشن وكوجو ليستي محمد عبد الله الشينة oo ah inuu furay xurunta Amoud Center ee lagu kaalmeynayo ubadka Soomaaliyeed ee autism-ka qaba si ay uga caawiyaan maxayday xagga tacliinta xagga maxayday dhawaaqa iyo hadalka caruurta lagu tababarayo waayo waa mid loo baahan yahay waa mid community-ga Soomaalida halkan degan ay u baahan tahay iyadoo la kala reebin waayo caruurtii baa xad muddo baryahan waqtiyada dambe waa mucjiso rabbaaniya in caruurta ay ku soo badatay autism-ku marka ilaahay ha waafajiyo hana gargaaro ana kana ajar maxaday wanaagsan ha ka siiyo amalka fiican ummadda Soomaalida islaamka ugu deeqay wassalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh assalaamu calaykum waraxmatullahi tacaala wabarakaatuh maanta waxaan joognaa madal aad iyo aad u qurux badan oo maxaan ku dhadaayay lagu sameyn doono adeegyo kala duwan oo dadka baahiyaha gaarka ah qaba maxaan ku dhadaay loogu adeegi doono insha Allah tacaala waxa furay maxamed cabdilaahi maxaan ku dhadaayay maxamuud cabdilaahi shiine aad iyo aad bay qurux badan tahay waxa maxaan ku dhadaayay aan ilaahay uga tuugaynaa meeshii maxaan ku dhadaayay muxuu ahaa wax qabadkeega iyo maxaan ku dhadaayay waxtarkeega iyo faa'iidooyinka laga helaayaba lagu raayo insha Allah tacaala waxaan leenahay hambalyo Allah maxaan ku dhadaayay muxuu ahaa waxtarkeeda iyo waxqabadkeeda iyo waxa laga sugaayo oo dhanba ilaahay maxaan ku dhadaayay aqbalo insha Allah tacaala aad iyo aad baad ka soo qaybgalayaasha oo idinkuna u mahadsantihiin waxaan leenahay meesha hambalyo iyo bogaadin fara badan ayaan u diraynaa ilaahay waxaan uga baryaynaa meeshii lagu raayo insha noqoto insha Allah tacaala assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سؤال هذه وديسي آدي في عنتها هاي وحويا سنتر كان وسنتر قراتين تان أجنه هاي لوجو تلاقي برنامج لأن عيال كم تقعنا أوتيزم هايو تاسيو سومالي دا جوال كندجن خاصة مريكن كأدو بدني حنو كاسي ويبقى هين ذاتك عروت اللي إني فهمان مركز سنتر كان عروت قراتهم فعلا لكن سو حقروسي في عينه والد كسي أو فهمان حنون كان sidii loola tacaala amba dhibka ciyaalkan haysta centerkan waxa ka shaqeyn doona sidii inoo sheegeen amba arkano dad professional oo ku takhasusay xanuun noocaas ah waxaan kale arkanaa autismigu inuu yahay xanuun la daweyn karo amba ma taqaanaa hadii loo helo dadka yaqaana farsamadeeda amba fahansan in ciyaalkaasi noqon doonaan waa genius amba ay noqon doonaan mataqaana ciyaal ka fiican ciyaalka xitaa caadiga marka aad iyo aad baan ugu faraxsanahay in community-geena maxamed cabdilaahi shiine uu keenay maxaan qoraa fursadan maadaama uu isagu yahay nin ku takhasusay child development amba sida caruurta mataqaana loola tacaalo 25 sano oo aqaan wuxuu ka shaqeynayay education-ka amba wuxuu ka shaqeynayay wasaaradda tacliinta iyo iskuulada loo shaqeynayay marka waxa waa nin hawshaas ka soo bixi kara waxaan ilaahayna uga baryaynaa inuu ilaahay u barakeeyo businesska inuu ilaahay ciyaalkaasi mataqaana loo keenayna ilaahay sida waalidku jecel yihiin inuu ka dhigo aad iyo aad baad ninkan u maasantihiin وجزاك الله خير